waliba geedka sharwiin aan safay guddiga amniga baarlamaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya waliba qayb ku hay wasiirka amniga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xasan Alay waliba shirkaasay qayb ku hay kusimaha madaxweynaha dawladda koonfur galbeed iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya shirka waliba lagu aransaday guud ahaanba amniga deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya xiligan oo magaalada Baydhabo iyo martigeliyay doorashooyinka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya waliba markaasay inta badan ku hadalay amniga koonfur galbeed Soomaaliya sallan qayb qaadan lahaayay waliba markaasay la ku saaray warmurtiyad kooban dhowr qodob waliba aqriyay warbaahinta xogayaha guddiga amniga baarlamaanka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Bashiir Ibrahim kulankaasoo wasiirka lagu weydiinayay su'aalo ku saabsan xaaladda amni ee koonfur galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo maadaama lagu jiro u diyaar garowga doorashada madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya gabagabadii kulanka ayaa guddiga amniga waxay go'aan ku gaareen qodobadan soo socda in la taageero dadaalada lagu sugayo amniga ay wadaan wasaaradda iyo ciidamada amniga number 2 guddiga wuxuu garowsaday in ay jirto sabab macquul ah oo loo xoojinayo ciidamada si tiradooda iyo tayadoodaba sare loogu qaado guddiga wuxuu xaqiiqsaday in lagama maarmaan tahay in la xoojiyo howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Baydhabo guddiga wuxuu ku amaanayaa wasiirka amniga taliyaasha ciidamada amniga iyo dhammaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan sidii ay har iyo habeen ugu taagan yihiin arrimaha lagu sugayo amniga iyo ka hortagidda dambiyada abaabulan ee lagu waxyeeleynayo shacabka number 5 guddiga wuxuu ku adkeynayaa wasaaradda iyo ciidamada amniga inay saraakiishooda inay si adkeeyaan fiijignaantooda dadaalada lagu sugayo amniga lagu xoojinayo number 6 guddiga wuxuu ka codsanayaa shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee u taagan badbaadinta nafta iyo hantida shacabka number 7 guddiga wuxuu u mahadnaqayaa qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed iyo saaxiibada AMISOM